Assalamu alaikum. Hot conversation between boy and girl. Hot conversation wada sheekaysi kulul between u dhaxeeya boy and girl, wiil iyo gabadh. Boy wiilkii, it's great pleasure, farxad weyn bay ii tahay for me aniga to standing in front of you inaan kula kulmo. How are you doing my sister? Sidee tahay walaashay? How are you? How are you doing my sister? Sidee tahay walaashay? I'm fine my brother. Walaalkay waan fiicanahay. What did you prepare for us? Maxaad inoo soo diyaarisay? What did prepare for us? Maxaad inoo soo diyaarisay? Boy wiilkii, I have not prepared waxba maan soo diyaarin. I have not prepared for something for us. I have not prepared waxba maan soo diyaarin something for us. Waxba inoomaan soo diyaarin. I have not prepared something for us. Waxba inoomaan soo diyaarin. Waxba inoomaan soo diyaarin. Because maxaa yeelay I hate waan nacabahay to make practice with you inaan kula sheekaysto. Because maxaa yeelay I hate waan nacabahay to make practice with you inaan kula sheekaysto waan nacabahay. You pretended waxaad iska dhigtaa what you are not waxaanad ahayn. And why do you consent to abuse? Maxaa kugu khasbay? And why do you consent? Maxaa kugu khasbay to abuse inaad aflagaadayso the students ardayda with making you practice kula sameynaya wada sheekaysiga. And why do you consent to you? Maxaa kugu khasbay? And why do you consent? And why do you consent to abuse to the students with making you practice? Maxaa kugu khasbay? Why do you consent to you abuse? Maxaa kugu khasbay inaad aflagaadaysid the students ardayda with making you practice kula sameynaya wada sheekaysiga. Girl, inantii baad haddana hadasha waxay tidhi that's not your business. Maaha shaqadaada. It doesn't concern you. Kuma khusayso. That's not your business. Maaha shaqadaada. And it doesn't concern you. Kuma khusayso. Boy, haddana wiilkii ayaa hadlay. You don't know ma taqaanid what is good and what is bad. Wixii kuu wanaagsan iyo wixii kuu xun ma kala taqaanid. I'm not chatting you again. Mar dambe kula sheekaysan maayo. Because maxaa yeelay you shy off waxaad istustaa to the students ardayda. Girl, haddana gabadhii ayaa hadalka qaadatay waxay tidhi why do you consent to maxaa kugu qasbay to point your fingers to the people inaad dadka faraha aad ku fiiqdid. Why do you consent? Maxaa kugu kalifay to point your fingers to the people dadka inaad farahaaga ku fiiqdid maxaa kugu qasbay bay tidhi. Boy inankii ayaa hadlay wuxuu yidhi you are talkative girl. waxaad tahay gabadh hadal badan. And you are talking waad hadlaysaa. And disputing waanad murmaysaa all the time waqtigoo dhan. Because maxaa yeelay you are hiding waxaad qarinaysaa your weakness dicifnimadaada. So saa daraaddeed realize soo daa what do you have waxaad haysid. Don't lose haynaga luminin our golden chaniskeena dahabiga ah. Girl, haddana gabadhii ayaa qaadatay hadalka waxaanay tirid do you know ma taqaanaa what true love is? Wuxuu yahay jacaylka dhabta. Do you know ma taqaanaa what true love is? Wuxuu jacaylka dhabta yahay. Boy inankii ayaa hadalka qaatay waxaanu yidhi haddana I don't know ma garanayo. Why do you ask? Maxaad u weydiin weyday qualified people dadka ku takhasusay
in love jacaylka ku takhasusay because maxaa yeelay I don't know ma garanayo what is love wuxuu jacaylku yahay haddana gabadhii ayaa hadalka qaadatay one is about the time waqtiyada ka mida I saw you waan ku arkay I saw you waan ku arkay to talk a beautiful girl adigoo la hadlaya gabadh qurux badan why didn't you ignore something maxaad iskaga dhagatiraysaa why didn't you ignore something maxaad iskaga dhagatiraysaa boy wiilkii ayaa hadalkii la wareegay waxaanu yidhi that's not bay ahayd halkaas cafwan that's not your business maaha shaqadaada little girl gabadh yahayari girl haddana gabadhii ayaa hadalka qaadatay waxaanay tiri do you know ma taqaanaa the secret sirta which taasoo behind ka dambeysa make seduction in haasaawe la sameeyo boy inankii ayaa hadalkii qaatay wuxuu yidhi yeha it is easy way fududdahay the secret sirta which behind ka dambeysa making seduction in la sameeyo haasaawe it is a marriage waa guur girl ayaa hadalkii qaadatay you are a assertive person you are assertive person waxaad tahay qof is adkeynaya waad is adkeynaysaa you don't ask me hay weydiinin personal questions su-aal khaasa waxa assertive person ma waxaad tahay maquusato qof maquusato ah qof maquusto ah don't ask me hay weydiinin again mar labaad personal question su-aal khaasa I will slap you waan ku dhirbaaxi doonaa I will slap to you waan ku dhirbaaxi doonaa do you understand me may fahantay little girl inaan yahay yari inanka ayuhaa markaasaa isagaa yidhi haddana boy you are misbehave waxaad tahay qof dhaqan misbehave person waxaad tahay qof dhaqan xun you are not outgoing ma tahayna bulshaawi casharkii maanta intaa haynoogu joogo intan cashar dambe oo kan la mida aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh